bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada sheekadii dib iyo dheef jacayl amraniyadu kukubuka indhuhuna dartaa ilmaynayaan fikradda iyo ixtiraaca sheekadani waxaa iska leh mukhtaar cabdi iska iyo qoraasare cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir fantastic waana timintii isla anigoo ah cabdinaasir axmed xasan cabdinaasir fantastic ee qaybtii sagaalaad ee sheekada waxa ay noo joogtay wiilkaygiina sidoo kale aan ugu xiisay kol wiilkay markaa waaweynaad asoo 3 bilood shidha igu dambeysay hoy runtii isha gabadha xagee shidhaa maya hooye ooyin hadalka runta ah waa la qarqarinayso la ooyin hooyo maxay tahay dhibaato isha hooye ooyin horta ilantas ka tir hooyo gabadh maxaa ku dhacay maxaa jiray isha hooyo wiilkaygiioo marna waan farxay marna waan naxay marka aragtidaada arko waan ku farxay wiilkaygiioo markaan ku waayay aan kaa samray baan gabadhii baxshay yaa hooyo see oo hadlaysaa aniga ma inkaba samarno intaas wada raadinay see iga samarto hooyo anoo wiilkaagiya gabadhiina ku bixisa waxaas macquul ma taha hooyo see ila hadlaysaa hooyo wiilkaygiioo 2 sano naga maqneed dhimasho geeri waxa ku maqneed laba garanayo saas aniga gabadhii ku baxshay hooyo anigaba waxaa laygu tilmaamay inaad dhimateen oo qoyskii dhan u baabaayay saasay tahana ma samrin kismaayo gobollada dhex meel aan idinka raadin ma leh haddeerna waa insoo maanta qayr waatana waa la jooga hooyada waa la joogaa laakiin hooyo see ku keenteena gabadh aan qabay aad bixisid anoo ogeyn kafantiida adoo arag see ku bixis hooyo see ku tahay wiilkaygiioo anigu waan ku waayay arrintiina waa dhacday gabadhiina waan baxshay iba 15 bil ka hor baan baxshay 15 bil ka hor haddeer ahaa haa wiilkaygiioo hooyo waxaan kula yaabana ani markaa imidna bixinaysay inta ka hor maxaa bixin weysa xitaa macquul maan aniga hadda markaa imid miyaa bixin 15 bil ka hor waa jooga haddeer abti mar u lahaa hooyaan soo guurinaya kabacdi maantaas xitaa waa joog muqdishaan joog wiilkaygu waqtiga waa dhacay markaasna waa laga soo doonaanay nasiib xun yani maxay tahay dhibaatada ay haysata mar walba haddeer markaa imid aan intaas reedinay gabadha intaas reedinay aan jeclaa dhibaato u soo maray hadda markaa imid leeyahay waa la baxshay waxaan sameeyay haddeer waxaan sameeyay maaqan wallahi billahi taala aad adduunka waa ku wareer wallahi adduunkiisa waa wareer hooyo wiilkaygu hadda maxaa soo binaa intaasi waxay ahayd ixtiraaca qaybtii sagaalaad ee sheekada iminkana ku soo dhawaada qaybtii 10aad ee sheekada horta hooyo arrintaa waa dhacday arrintaasna horta arrintaa ma filinayn inaan saas samayn doonto hooyo laakiin hooyo 2 mid oo kaa codsanayaa maxay tahay waxay iga codsanaysid hooyo 2 mid oo kaa codsana waxay tahay horta mid oo kaa codsanaya midda koowaad waxay tahay horta inaan soo laabtay ama aan noolahay muqdisho joogo horta gabadhaas inaada marnimad aad ogeysiin simada fahmin midda labaadna waxay tahay hooyo wiilkii yarka aan dhalay oo gabadha ay haysato faa'iiso ahayd hadda maadaama la araso nin ay guri u joogto marka ninkaasna oo dhib ku yahay ninkaas ilmahaas uu korinay oo haya dhib ku tahay inaa wiilka ka soo weydid inaan korsadaan rabaa qaabka uga qaadaysan waxay tahay waxaad leedahay anoo iyahaanba u korsanay wiilka anaa korinay anaan haynhaya anaana guriga geynhaya abtiya halkaasaan iskala noolahay marka wiilka isii eedo waa ku siinaysaa gabadha kaa diiday masana marka wiilka ii soo wad arrintaas labadaas codsi ii samee keliya waaya hooy waa kuu subina arrintaada waayo hooyo waa maasantaha hooyo faadimo iyo wiilkeeda mubaaraka waa la isku dul baroortay oo waa 2 qof oo in muddo kala maqnaa inkastoo hooyo faadimo mubaaraka ay u daysay dhimasho wuxuuna ka codsaday inay u keento wiilka ayna u sheegin faa'iiso maalintii dambe ayaa hooyo faadimo aaday gurigii faa'iiso si ay wiilka kaga soo qaado arrimo kalena ay kala sheekaysato alla gabadheeda maanta waa ina u tagaa faa'iisaheed maalmahan maan arkin waxa ku nooshahay balaan soo arkay hadda gurigeedu waa imid balaan gargaraaca alla qofkan eedamiya eedahaye eedamacan waa ku fiicana seeta adiga xaaladda kan waa ku xisnay seeta baryaanku maana arkine waa ku ladana hooy soo gudub waan dhawa hooy macan hayana kan xaafad gurigan hore u sii galnaa waaya hooy maanta maxaa dhacay eedo ma wax dhibaa jira mooy hooy wax dhibaa ma jiraan arrin baa kaa soo doontay hooyo maxay tahay arrintaas hooy waxaan rabaa wiilka inaad siisid anaa korsanaya anaana heesanaya marka inaad siisid baa kaa doonaya waa ka xumaay eedo wallaahi horta wiilkan waa calaamadda jaceylka eedo wallaahi inkastaadu aa hooyo tahay mana lagu diidi karo cidlaana ka weheshanaya wiilkan gabadheedii anba keligay baa asaa weheshanaya asaa keligii wiilkayga ii dhalay inaad siisid baan kaa doonaya haye eedo macanta waa ku siinayaa gabadheedii
haddaa rabtid khamiis walba jimca kasoo soo booqan kartaa wiilkaaga. hayeedo qamiista soo socota idimaan hayaa. Haye gabadheedii. faa'iso maama faadimo wiilkii way soo siisay oo gurigeedii ayayna u soo noqotay. mubaarak ayaa dhinaciisa doonaya in faa'iso uu xalaaleeyo ninkii horey loogu daray maadaama horey ay u ahayd xaaskiisa isla markaana dhimasho loo qorsheeyey oo sidaas loogu daray ninkan. runaanta qorshe inaan keeno weeye hooyo arrinta ii sheegaysa ay leedahay gabadha haddii guuriyey gabadha saan arkayaan waxay leedahay nolol farxad leh ku jira markaan inaan ka qasab maahan aniga haddaan xilligan istuusan amaan iraado horta guurka ninkaas dambe guur sharci darraa weeye haddaan xilligan istuusan dhibaato weyn baa ka imaanaysa marka qorshe waxaan rabaa ninkaas guurkiisana ugu hirgalo aan qoftaas aysan dhibaatadeedii waxay badan macnaha aan u dhibaateeno mar labaad aan iskugu soo laaban murugo iyo wax kale maxaan sameeyaa niyo nafta armuda hogaamiso waxa uurka gube waa aamuske ma adkaysiba ufan looga dhigay iltiyo hoqdiyo hadda waraqad furiin oo qoray waraqadan hadda waa ku furay xilligaana joogtaa waxay leedahay maxay furaysaa waa dhibaataas amaanaysa laakiin anaa qorshe garta iska daa waraqad baa qoraya waraqadan waa qoraya yar saaxiibkan u dhiibay waraqadan waxaan leeyahay hal sano ka hor baan qoray ninkan waxaan leeyahay ku akhri hal sano ka hor baan qoray si ay u moodeen inaan dhintay in kale waraqada mar hore aan qoray markaas wariga ma haysa moogtay saasaan sameynaya iska daa waraqada watan anaa dhiiyo waraqada watana oo ninka saaxiibka ma ninkan oo ninka saaxiibka injineerka miya saaxiib maan iwar way saaxiib injineerka saaxiib nin muqdisho saan oo dunya kuma arag bani oo saan muqdisho ugu soo laabtay horta nin adoo macnaha dad yareena isugu kay dambeysay muddo aad far badan baa kala maqnayn marka saaxiib iwar nin muqdisho maxaa ka haysay inta ma joogtay xilliga dagaalada ilaa hadda ma joogtay saaxiib maan waa joogo laakiin adiga dhibaata ka muuqatay maxay tahay وني وحوجا ما صوتش بنو أيام بعد ما صوتش مهدينا هي تاسنا كبحني وأخيرا ما أنت كلاه إني أنا مسلم أنا إني نقصد أنا يقول شيء صاحبه بالعكس عكس أجد أنا maxay tahay arrinta saaxiib ku sameynaya صاحبه ورتانيني وتعليقات وديرتك أنا شكلين كرا صاحبه لكني هو أنت واحد إنه ورقة بأنا قادر سوا ورقة الجوار بوجيني ساكبر هذا كنت إني هو مثلا مش إسقوس كوين أو هوتيل كوين كأقدسين هي قريها سيد كنت إني كبر وناقل قوي نقول أصلا هرانا وقبي شري مركا يلا يحرم بنيك الجورستاني ما حنرا مركا نكاسني هو أرنت سانو ويسيني هو لأني كتقولنا دنتي أنا بس إيميليان marka arintii si ku ogaan baa xarabani waraqadan waan ku dhiibaya waraqadan waxa ka dhigaysaa waraqad hal sano ka hor la qoray waa u tigay saale waraqad hal sano ka hor baa la qoray marka ninkaas way soo dhiibay xilligaas soo ah hebel la dhihi jiray soo dhaawac asaas ii dhiibay marka inta soo kureedinayay marka hadan ku soo yaray waa kaas waraqadan ana u qoray waraqadin waa tana hay saaxiibana waa ka gaarsiinaya saaxiib qofka hadalka kugu sheegay saaxiib intaas kale ugu sheegtaa la rabo qofta aadan saaxiib ay ga dhisto nin waa hore warqada ku sii dhib hal sano reedin in saas ugu dhisto saaxiib arrinta qofta u sheegtid saaxiibana hay taas ana ka dhameynaya saaxiibana hay way warqadin waa tan hoo saaxiib ii dibal hay saaxiib saaxiib midkan ku sheegay gabadh magaceeda Faa'iisa leeyahay Faa'iiso ay warqad furiina ayuu u qoray Faa'iiso Mubaarak wuxuuna u dhiibay injineerka oo saaxiibkiis ah si uu fasax u siiyo Faa'iiso injineerka ayaa si toos ah u aaday gurigii Faa'iiso si uu warqada ugu geeyo wuxuuna soo taagay iridda guriga oo ku yiri abaa iga fur guriga waayo abaa maanta gabar Faa'iiso leeyahay guriga ma degan tahay haa aniga abaa maanta arrin baan ka lahaa hore soo gudub bal abaa maanta arrin weyn maana wax yar baan iridda kugu sheego haye abuu bal ii sheeg abaa maanta horta hal sano ku dhawaad ayaa ku raadinayay nin la yiraahdo Mubaarak ayaa warqad igu soo ka dhiibay asoo dhaawaca oo meel Muqdisho dhexdeeda yaala markuu xiriir gabadhaas inta raaysinay warqadaas iga gudbi warqadii baan ku dhiibayaa sidaad warqadu maxay tahay abaa maanta muddo hal sano laga joogo adigu ayaan hayay wax ku qorana wallaana war u hayn horta warqada ii dhibana aqsanaya haye abaa maanta bye mid ma ku weydiin karaa abuu haa markuu ugu dambeysay goorma ahayd adigu ma aqaan hal sano ka hor meelahaas bay ahayd haye waa mahadsantaa islaanteedii waxa wada waa maxay ma aqaan waa warqad wiil ii soo dhiibay haddaba bal akhri bal wax ku qoran aan fiiriye bal u kaadi
abay faa sortan wareen markuu war joog salaamay marka la wadahan raba inaan ku sheego inaan aniga dhaawacmay muddo intaas aan dhaawacmaa dagaaladii dhacay ka bacdi adiga hooyana waa idin waayay waa isweynay muddadii dagaalada ka bacdi ahayd waa isweynay adiga hooyo meel ka baxdeen waa idin waayay anigana dagaalkii maalmihii dhibaato badan bay u gaadhay waana ku dhaawacmay marka waraqadan aniga soo qoray waana waraqad fariin ah oo ah inaan sakaa fasaxo maadaama tahay adiga qof marwaa mustaqbalna aad sugaysid aniga inay xayirnaatina maahan marka waraqadan kale in si kuu soo gaari doonto maaqaan waraqadan xilliga alaali xilliga akhristay wixii ka dambeeyay iga furan tahay markasta ay ku soo gaarto waraqadan in aniga xayirtin ay sugtinin maahan waraqadaas ma akhristay wixii ka dambeeyay iga fasaxan tahay midna waa ka codsanay wiilkigana iyo xafiiday iyo dhowraatay haddaan nool ahaan waa nolol hadda dhintana waa kaasa talo markaas ka bacdi ma noolaada mise wuu dhintay waayaab war hadda arrintan ma jidhaa walaashay haa way jirtaa awal oo dhan maxay igu sheegi weyd waxaaba mooday inay eedda kuu sheegtay eedda ima sheegine bal maxaa hadda aan samaynaa horta dhibaato ma leh hadduu dhintana allah naxariisto hadduu nool yahana allah soo celiyo se mar labaad baa issoo xiranaynaa aqalkiina waa noo yaalaa walaahi qorshe fiican weeye hadda waa inaan ku dhaqaaqnaaba haye waa wixii hore allah naga cafiyo dembigana allah dhaafo aamiin aamiin xaaj aamiin ayaa nari idin ahaanteenba sidaas ayaa lagu furay faa'iso dibna waxay isku soo xalaalaysteen saaxiibkeeda cusub ee xaaji guuleed dhanka kale aabbo mubaarak oo wiilkiisi helay ayaa hooyo faadimo ka codsaday inuu wiilka magaalada u dhigo si uu maanta uga soo farxiyo wiilkan oo in muddo ay kala maqnaayeen hooyo haa wiilkaygii hooyo wax midda ka reerta magaalada aad rabo waa ogta iid iyo waxyaabahaas inay soo dhow yihiin marka cunuga yarka waxaan rabaa inaad qaato aan magaalada dhar wax uga soo gadoodo marka hooyo hay wiilkaygii oo ducaysantaa usoo gadbal kole idinkana waa idiin geeni doonaa xoogaa ayaantan lacag waa jeeb qoyanaya idinkiin xaafadan dhar usoo gadi doonaa marka wiilka yarka magaalada iskala aada rabe hooyo iska ilaali magaalada waa xun tahay wiilkana kaxiso waaya hooyo anaa iska ilaalinayo hooyo magaalada way xun tahay wiilka ilaali dhaqso u soo noqo iyo eryo kale ayay hooyo faadimo wiilkeeda mubaarak ku dhahday magaaladiina waa uu aaday si uu dhar ugu soo gado wiilkiisa yar amar nuqudheedu oo muqdisho gees ka joogtaa in muddo ayay guriga ku nasanaysay daalkii faraha badnaa ee kismaayo muqdisho oo aad u dhisantay ayay maanta dalxiis u tegaysaa arrimo kalena ay ugu heliyaan waxaan sameeya maaqaani wallaahi saa mid socodba ma gelin safarkii aan soo galay baan guriga la joogo gurigana waa iskaga caajisay marka maanta waa inaan meelahaas kasoo damashaada ilaa muqdisho waa magaalo aad u qurux badan inaan aado waaye magaaladaas kasoo damashaada dhar iyo alaab iyo shoobin iyo wax iskasoo gadgato wallaahi haddan tagaya wallaahi ninkaan raadin jiray inaas aragnaa laga yaabaa ninka saa'id buu iiga dhex baxay waan jeclaaday wuuna iga soo tegay nasiibkaan aan eegayaa bal ilaahay waxaan rajeynaa inaan maanta magaalada ku dhex arko anigoo socda iyo isagoo socdoon isagoon weliba kadiska macaanba ma jirto taasoo kaleetee laba ruux oo midba midka kale in muddo uu ka maqnaa ayaa maanta magaalada soo dhex aaday talow maxaa xiga waxaa maqli jiray muqdisho ayaantii hore ay dowladda ahayd waa loo soo dalxiisiga meel aad u qurux badan bay hadda anaaba ku inraalisaaraha maanta suuqa dadka u kala camilan ciida keliya dadkan soo baxaan iyo xiliyadan damashaadka mase xilli walba dadka magaala u socdaan waa kala fahmi waayo naagaha si loo qorxay ayagoo dhan bismillah magaalada ku dhex wareera wallahi bila magaalada caadi maahan alla magaaladu qurux badanaa caadi ma maahan maasha allah hay alla qofkaasoo asagii maahan waa kaa alla waa asagii alla maxaa iiga soo tagtay aniga walaa in badan baa kuu xiisa qalbigayga niyadeeda waxay leeyihiin ma tilmaami kartaa ilaaha maanta ii kaa keeno alla waxaan sameey maa waa inaa habka siiyaa bismillah yawi amran maya horta sii daa horta magaalo dhexdeeda dadkan intaan qofaa meesha maraysa u jeeda amran sii daa horta iga foqorto sheekaysananaya sheekadaa sheegaysa maxay tahay qalbigaaga inaa igu qabatid baan rabaa qabowga iyo kulaalka aan dareemayo midkoodba aa ogaatid hal mar inaa habisiis waa ku qasbanaa walaahi alla aniga waa kuu xiisay meesha magaalo wey dadka meeda ka xisheenan wajaa dadka halana magaalada soo maray mujtamac wey gaariyaasha dadka u socon u jeeda horta isiida horta afka garada istaag taas caadi ma waa sheekaysanana wax kastoo isfahmaynaya
wallaahi ma kaafaqaayo aniga muddo hal sano iyo ka badan baa weliba ku raadinaya qalbigayga wuxuu ii sheegaya ma dareemi karta maanta aad baan u faraxsanahay waxaan sameey ma garanayo sidee kaaga fuqi kara adiga qalbigayga dhan baaba tahay be allah nasiibkan ma laha ilaahayo wallaahi bilaahi aniga meelna waa ka nasiib badanahay meelna waa ka nasiib xumaa qof aan inta badan jeclaa wiil iyo dhish intaas raadinayay waa la bixiyay lisaas qofta isku dhaafnatan ayaan dhahaas aan isjeclaanay oo in badan aan sheegisanay inta ay raadinay qof dhab iyo jeclan wallahi maanta arkin inaan ka faa'iideysto qoftaan wax la qabtaa abaay amran wallahi aniga aad iyo aad baan kugu xiisaa laftigeyga in badan saan kaaga soo tagay ilaa hadda ayanta ma nasano kismaayo xitaa saan kaaga raadinay maran ku waaye ka bacdan iska soo tagay muqdisho iska sii aadayo xitaa mararka qaar waa kugu fikiri jiray maadaama hadda isaagnana aniga laftigeyga ka disbaytaa farxad bay itaa laftigeyga aan laftigeyga kugu dhigi lahaa magaalada ka xishada maahane dhigid baad ka hadlaysaa anigana sidaan kuu raadinaya daale ilaah baa mahadle maantay anigoo waa ku jeclaa tira hadalla qalbigayga dejinahay ayaan codkaaga ama afkaaga aan ka maqlaya horta runaantii amran kolla inta ay raadinaysana haddee qof dad isjecel baahin qof jecelna hadda ma nasto waa ogtahay ida laftigeyga aan laftigeyga dhibaato fara badan iyo waxyaabahaasaan soo maray kolla arrimo badan taariikhdan oo waxbaa ka haysay marka waa ogjeedaa cunigan aan maanta wato baan raadinayay cunigan aan wato maantay kolla ani arrin horta waxyaaba badan baa kaa qeeyay amranay aad ogeyn ani cunigan maanta anaa dhalada ku maxaa samayn lahayd caadi waa waxaas dhib ma leedahay cunugan haddaa dhashay ilaahay baa ku siiyey soo maahan waa aniga hooyaanba u ahay basaasaan hooyo uga ahay wallaahi amran wax qof wax garaata wallahi waxaan kugu jeclaaday arrintaas horta gabdhaha qaar maxay dhihi lahayn cunug nin ilmo dhalaa wiimahaas oo dhashay xitaa weydiidi lahayn laakiin qof jacaylka dhabka iyo wax garada tahay anina waxaan ku ballan qaaday wax allaali waxa iga bixit amaan kuu samayn karo si allaali si aan jacayl kuu siin karo aan kuu sameeyo baa ballan kuu qaadaya hadda wax iga codsan maxaa rabtaa aniga wax weyn ma kaaga baahanayay noloshaada iyo nolosheeda inay isku soo dhawaadaan ani adiga aan aqal galno is aroosno taas anaaba raadinayay mijiga rumaysanaysa saan kaaga soo tegey oo hal sano camal laga joogo qof adiga ahayn oo dambe oo naaga aan la hadlay igama dambeynba intaas arkaysid naaga dambe lama hadlin xitaa lama fadhiisan marka adoo caddayn ka dhaa marka aniga laftigeygu dhibaatada iyo oonkaan qabo dareemi ka dhaa farxad ii dhiman malahan maanta maiga aqbasha hadda ani adiga inaan saroosna aqal galno oo ooridaada aan noqdo adigana jaceylkeyga aan noqoto oo weligeena aana kala tegin ani adiga inaana kala tegin waa xitaa waxaan ka aqbalay olii deerkeeda aan noqono in waqtigana kala geeyo dhimashana kala geysan mahaane inaana kala tegintaas anaa baa kaa ballan qaadaya aad baana ku jeclaa waa ku dananay in badanna waa ku jeclaa hadda ka bacdina waa kusii jeclaan doonaa kolla ani markaan hadeer wax kas diyaar baa anaaba hadda radeynayay waxaan rabaa maalmaha soo socota inaan aroosna aqal galno aniga horta adi laakiin kugu weydiin muqdisho kugu ogan waqti reer kismaayood baa iska ahayd marka muqdisho hadda markaa timid yaa la joogtaa muqdisho habaryarahii baan la joogaa adiga aawadaan waan usoo baxay intaas adaan ku raadinayay macnaha muqdisho ma imaadeen laakiin adigan kuu imid ilaah baana mahadle maanta ilaahayga ikaa siiyey waqti walba waxaan ku seexan jiray inaan ku helaya adiga wallaahi qiiro jacayl ama hadale macaan afkaa kasoo baxaya wadahayga dejiyaan halkayga si aan maantay muqdisho dadkan say u iidayaan u faraxsan yihiin ani waa la ii dheeriyay jacaylkayga maantay aad bulshada aad baan u faraxsanay laftayga habaryaraha hadda la joogta adiga waa fiicantay wallahi habaryaraha kolle arrin waa dhammayn karaan base hooyadaaba wacaysaa laakiin aniga hooyaday waa la joogayana abtigay hadda hooyaday ayaan kusoo baraya oo hadda xaafadda joogta hore iska raacayna hadda maalmahan gudaheeda aqal galma xitaa lacag waa haystaan aan ku dhisto ayaan shirkad ka shaqayn jiray iyo ayaan lacag baan iska aruursada lacag xaggeeda waxba ha ka baqin anigaa wax walba kuu haya anigana wax walba kuu ah anigaa noloshaada maxaa lacag ku falaysaa anigana lacag maba qiimeeyaba ilaahba agteeda dhoobay muhiimadda waxay tahay adigana aan ku helay hooyana waa wacaya wax walba la socodsiina haddana waxaa rabaa inaan hooyada isoo tustid waayo waa hooyaday oo kaleeto waayahay soo wadi gacalis mabixi macaankeygii amranay haddaan mid ku weydiiyo horta laba qof isjecel ma ahayn marajin jidha markasta inay heshid ama saas masugu kalsooneyd qofka biniaadanka haddii labada qof ay si dhaba isku jecel yihiin waxaa qasaba inay ishelaan maalin maalmaha kamid xilliga ay noqotaba ahaatee halkaas anigana waqti walbeeto waan kugu soo toosi jiray waan kugu seexan jiray inaan adiga ku helaayo runaantii wallaahi aad iyo aad baa iga farxisay horta noloshaa arkaysid adduunka arkaysid horta waa waqtiga lagu sheegayan waa aniga waayo waqtigan macnaha waa iska dawareega qofku intuu nool yahay ba waqtigan socdaa oo iska dawareegaya qof walba noloshiisa ku xidhan tahay runtii aan laftiga waa rajin jiray mar walbo isaan kaga sii jiray markaan kusoo xasuusto waa rajin jiray mar walbo aan kusoo xasuusto inaan ku arko inaan aqal wada galno inaan reer wada tegno waa rajin jiray taas runtii maanta ilaahay qadartiisa maantana waa dhacday inaan aqal wada galno aan ishelno inaan guur aan dhisano aan dabcan aan rajino ama aan ku tashano horta maantaasna waa dhacday waa ilaahay xamdigiisa marka amran waa yaan ku dhaafay masheekadiina la tegin guriga waa kana hooyadii aan gargaacaya isug talo qof gargaraacay balaan ka furo hooyo xaaladda ka waran
wiilkayga indhalaaba soo noqotay xaa kugu dhacay dharna cunuga ma soo gadinama asay keligiisaa wada tahay wallaahi hooye dhar waa liiga wey maanta cunugii dharkiisi waa ilooba arrin maanta aad ii weyn baa igu soo degdegtay oo hooye maantay waxaan wadaa qof intaasna waxaa ku eg qaybtii 10aad ee sheekada dhib iyo dheef jacayl la socda qaybta 11aad ee sheekada waa cabdinaasir oo idinkaga tegaya isma dhaafno sida mayaroor ama ubaxayo meelubada